hooyo moogtahay faa'iidada caafimaad ee ay leedahay ku xidhnaanshaha xanaanooyinka ama goobaha caafimaadku. Ku xidhnaanshaha xanaanooyinka ama goobaha caafimaadka waxaa laga helaa adeegyo kala duwan oo ay ugu muhiimsan tahay la socodka caafimaadka uureyda iyo dhallaanka, sida daryeelada ka horeeya dhalmada ee afka qalaad loo yaqaano antenatal care-ka. Hooyo ma la socotaa adeegyada laga helo xanaanada? Xanaanooyinka hooyo waxay fuliyaan adeegyo kala duwan xilliga ay hooyadu uurka leedahay ilaa ay ka umulayso. Waxa hooyada booqashooyinka ugu horeeyay ee xanaanada loo sameeyaa xilliga uurka in laga cabiro dhererkeeda, miisaankeeda iyo cadaadiska dhiiggeeda si loo hubiyo in dhammaan ay yihiin sidii ugu habboonayd caafimaad ahaan. Hooyo waxaa laga qaadi doonaa dhiig si lagaga baadho cudurro kala duwan. Sidoo kale waxaa la hubinayaa heerka macdanta birta ama iron ee jirka si loo ogaado dhiig la'aan inaad ka fayoodahay. Waxa kale oo hooyo laga baarayaa marxaladaha aad booqanayso xanaanada, xanuunada ay ka midka yihiin macaanka ay dumarku la kulmaan xilliga ay uurka leeyihiin, kaadida oo laga eego in ay la socoto wax borotiina amaba waxyaalo khalad ku ah sidii caadiga ahayd. Sidoo kale waxaa laga baaraa xanuunada la isugu gudbiyo galmada. Intaa ka bacdina hooyo waxaa talo lagaa siinayaa waxaad samaynayso marxaladaha hore ee uurkaaga iyo goorta aad imanayso booqashada labaad ee xanaanada inta lagu guda jiro booqashooyin xanaanooyinka. marxaladda labaad amaba aad sidkaaga uu soo gaadho usbuucyada 15aad iyo 18aad waxaa hooyo lagu siin doonaa daryeelo ay ka mid yihiin in la ogaado inaad xanuunada qaar ka fayoodahay si loo ilaaliyo badqabka adiga iyo uurjiifkaba. marxaladdan sidoo kale waxaa hooyo lagu saari doonaa kombiyuutar ka uurka si loo ogaado xaaladda ilmaha, sidkiisa iyo biyaha ku ilaalinaya makaanku inay yihiin kuwa ku filan oo ah intii loogu talagalay. intaa waxaa xigi doona booqashooyinka ugu dambeeya ee kugu sameeya dhalmadaada, waana marxaladda hooyada loogu sharxayo u diyaargarowga foosha, sida oo kalena lagu caawiyo wixii foosha u sahlaya. marxaladahan dhammaantood waxaa weheliyo hooyo casharo joogto ah oo hooyada lagu barayo cuntooyinka u fiican inay qaadato xilliga uurka, faa'iidooyinka ay leeyihiin fitamiinada kala duwan iyo macdanta birta oo u ah muhiim hooyadu marka ay uurka leedahay. sidoo kale hooyo waxaa laga caawin doonaa haddiiba aad walac la kulanto waxyaalaha sahla ee yareeya amaba u ah ka hortagga walaca. hooyo marka ay soo gaadho fooshaada xilliga ugu dambeeya ee sidkaagu soo go'o ee aad taagan tahay wakhtigii umusha, ma isweydiisay sababta ay muhiim u tahay inaad ku umusho goob caafimaad? hooyo waxay muhiim u tahay inaad ku umusho goob caafimaad siyaabo badan awgeed. hooyo waxaad la kulmi karaysaa ilaahay kulamo kulansiiye xaalado u baahan gargaar degdeg ah sida dhiigbaxa ka dambeeya dhalmada, foosha oo adkaata ama ilmaha oo neefqabatooba. intaasiba haddii aad la kulanto oo aad ku umusho goob caafimaad waxaad helaysaa gargaar degdeg ah oo ay ku siiyaan shaqaale loo tababaray inay bixiyaan hawshani. bal ka soo qaad hooyo adigoo ku umlay guri oo la kulmay xaaladaas, maxaad ku qiyaasi lahayd naftaada? hooyo ha isbaanan ee isbaadh oo hore u aad goobaha caafimaadka xilliyada aad dhalayso. hooyo adeegyada kale ee aad ka heli doonto goobaha caafimaadka wakhtiga dhalmada waxaa ka mid ah waxaad heli doontaa shaqaale loo carbiyey inay kaa yareeyaan warwarka, ku siiyaan talo, ku dareensiiyaan inay kula qaybsanayaan xanuunka foosha, waxaana dareemaysaa deganaan badan. sidoo kale hooyo ilmahaaga iyo adigu waxay ka badbaadaysaan xanuunada sida fudud loo kala qaado xilliga dhalmada, waayo waxaa kaa umulinaya xirfadyahano aqoontooda la hubiyey, qalabka ay adeegsanayaan uu yahay kuwo ka fiiyow isticmaal amaba kuwo la nadiifiyey. hooyo sidoo kale ilmahaaga wuxuu nasiib u yeelan doonaa inuu helo tallaalka carruurta xilliga muhiimka ah. hooyo waxaad la kulmi doontaa koox u tababaran oo loo carbiyey inay daryeelaan adiga iyo ilmahaaga xilliga uurka si naftiina loo ilaaliyo. hooyo ugu dambayn waxa ay goobta caafimaadka ku siin doontaa talooyin ku saabsan muhiimadda ay leedahay naasnuujintu. naasnuujintu waxay muhiim u tahay naftaada iyo tan ilmahaba. sida oo kale waxay kaa caawinaysaa inaad ka soo kabato daalkii iyo umushii, waxaana naasnuujintu kuu noqon kartaa ka hortag dabiici ah oo aad ku kala fogayso dhasha. hooyo naasnuujintu waxay ka hortag u tahay xanuuno badan oo ilmaha saameeya xilligan uu difaaciisu korayo. sidoo kale waxay hooyo naasnuujintu muhiim u tahay
adiga naftaada ogow hooyo naasnuujidu waxay ilmaha ka difaaci kartaa xanuunada kixda jadeecada shubanka iyo mataga ugu dambeyn hooyo naasnuujidu waxay ka saacidaysaa inaad lumiso miisaanka iyo culayskii ku fuulay xilligii uurka jir ahaan iyo naf ahaanna aad noqoto qof adag oo diyaar ah hooyo adeegyadan iyo kuwo kale oo badanba waxaad ka helaysaa goobaha caafimaadka oo aan kula talinayno inaad ku xidhnaato waqtiga uurka wacyigelinta waxaa soo diyaariyey mashruuca hiil hooyo oo uga gol leh badbaadinta iyo wacyigelinta hooyooyinka guud ahaan